cadaaladda iyo daryeelka u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta warfidiyeenka kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka sababay khasaaraha isugu jira dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay deegaanka Tukarraq ee ku yaala xuduudda u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. injineer Faysal Cali Waraabe dagaalkaasi waxa uu ku tilmaamay mid gaadma ah isagoona sidoo kale ka hadlay khasaaraha ka dhashay. kan in la socdo waxa wada farmaajo xamar baa laga wada Abdiwali wada adeegsanaya maanta ciidamada ka soo qayb galay inay tahay waxa garanaysa in ciidamada ay tahay dagaal Soomaali nagu wado ciidamadii Sayrasan ee loo tababaray Imaaraadku tababareen ay ka soo qayb galay waxa ka soo qayb galay kuwii tababarka gaalka lahay Mareykanka Bilidogli ee ku tababareen ee lagu tala galay in galgalay ka dagaalamaan special force-ka ay ka soo qayb galay oo hadda la haya maxaabiistoodii taas waxay ka marxaatiyaysaa inuu dagaalkani aanu majeerteen oo qura ku koobneen oo majeerteen ay awood ay Soomaali ku soo doortay jilibkaasi ma lehe inay tahay dagaal Soomaali oo dedan ay tahay. gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in habeenkii xalay ahaa qaraar la gaaray ku saabsan ammaanka iyo nabad ka dhalinta deegaanadaasi iyo sidii dib loogu fari lahaa wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. waxa uu sheegay in go'aamadaasi ay horkacisay dawladda Mareykanka oo wada hadalsiisay buu yiri madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya. waa sida uu hadalka u dhigay injineer Faysal Cali Waraabe waxaana hadalladiisii kamid ahaa maanta xalayta u dambeysay waxa la gaaray heshiis afar qodob oo Mareykanku uu horseed ka ah in xabadda la joojiyo wada hadalladii soo ala bilaabo farmaajo la hadlay Abdiwali la hadlay Muuse Biixi la hadlay maxaabiistii la isku celiyo wada hadalladii Soomaali si loo noolan lahaa mar wada hadal heshiiska sax la gaaray haddana afriya bartikay bayna soo weerareen shantii barkana soo weerareen anoo dadka Soomaaliyeed intay ma orano waan ku faraxsanahay waa la laayay waxaan leenahay waa la jabiyay horta gardaradii way arkiseen bariyaan social media-ka waxay ku hadliyeen talayaar heberay oo daqaawan. gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu hambaliyay ciidamada qaranka Somaliland ee ku sugan jiidda Tukarraq waxaana ku tilmaamay geesiyaal naftooda hurayaala kuwaas oo guul ka gaaray dagaalka ay kula jiraan Soomaaliya. waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiye Faysal waxaan u mahadnaqayaa ciidamadeena geesiyada iyagoo Sooman la soo gardaro garisay waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa ciidamada ka soo jeeda gobolka Sool channel uu yahay in ambalash ee maanta geesinimadii biladii Soomaaliland qaatay ayaa si gaara ciidoodii iyo caarkoodii ayaa daafacay warigi dilka lagu xukumay shirayta maqliseen laakiin dil baa la isku xumay inaga cadow inaga dhigaysaa nahay cadow manhi Soomaali cadow ma waa kala waa dad isku isira laakiin de kala administration sida Carabta sida European. Sakariya Sudeesi Cabdiraxmaan Daaca telefishinka Ariel magaalada Hargeysa.